Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal dhegaystayaal idin ahaatiinba ku soo dhowaada barnaamij cusub oo aan bilaabi doono insha allah. hadeerba inoo bilowday barnaamijyadan waxaan kusoo qaadan doonaa dhaqamada dadka, sida waxyaabaha ugu wanaagsan ay ku samaysan karaan, sida loo kasbado. Hadda waxaan kuu wadaa, ma noqon kartaa qof la jecel yahay? Jawaabtaadu haa mise maya, mid bay noqon kartaa, balse u badi in aad dhihi doonto haa. Haddaba sideed ku noqon kartaa? Ila soco. Waxaan kuu soo gudbin doonaa 6 qodob oo haddii aad samayso aad noqon karto qof la jecel yahay. Tijaabina 6daas qodob. Aan gudagalno barnaamijkeena. Qodobka koowaad, intaanan u horgelin, aan ku ogeysiiyo mise aan ku xusuusiyo qof walba oo aragto in lagu xiran yahay ama ay dadka jecel yihiin, ma aha mid ku dhashay markii ay hooyadiisa dhalaysay, ee waa uu kasbaday, wuxuuna raacay tilmaamooyin fara badan sida hadeer aan tilmaamahan kuu sheegi doono oo kale. Qof walba waa uu kasbadaa waxa uu yahay, ma ahan waxaas wax uu ku dhashay. Haddaba ila soco, aan u gudagalno qodobka koowaad. Qodobka koowaad waa salaanta in aad faafiso ama salaanta islaamka. Salaanta islaamka waxay ka mid tahay qodobada dadka bulshada aad ku soo jiidan karto. Bulshada meel ay dhex joogaan haddii aad ku kor tagto, ha iloobin in aad dhahdo assalaamu calaykum. Inaad dhammaystirtana waa ay fiican tahay, balse salaanta haba ka iloowin. Qof kaliya haddii aragtana sidoo kale salaanta. ileen nabiga waxa uu sheegay asxaabtiisa isagoo dhex joogo, wuxuu yidhi, ma idin tusiyaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan? Kadib bay waxay dhaheen haa. Jawaabta nabiga uu bixiyey waxay noqotay, faafiya salaanta dhexdiina ku faafiya. Intaas waxaan ugu gudubnay qodobkeena koowaad. Aan u gudagalno qodobka labaad. Qodobka labaad waxa uu yahay hadalka wanaagsan. Hadalka wanaagsan ma aha mid aad iskaga keeni karto, balse isku dhib in aad iska keento. Hadalka wanaagsan waxa uu ka mid yahay qodobada aad dadka ku soo jiidan karto. Marka lagula hadlayo, in aad si degnaan ah u hadasho, in aadan qiilqiilin, in aad ku mashquusho qofka hadlayo oo aadan ka jeesan, indhihiisana aad fiiriso. Haddii aad meelo u jejeesato qofka uu kula hadlayo, taasi waxay ka micno tahay in aadan rabin qofka hadalkiisa. Hadalka wanaagsan waxyaabo badan ayaa hoos yimaado aan la soo koobi karin. Hadalka wanaagsan waxaa ka mid ah qofka markii kula hadlo in aad u jawaabto hadal dibicsan oo aadan ka horgeynin hadal kulul. Qodobka labaad halkaas aan ugu gudubno. Waxaan u gudugalaynaa qodobka saddexaad. Waxa uu yahay weji furnaan. Mar saddexaad, weji furnaan. Weji furnaanta waa tan aan isku dhaafnay. Weji furnaanta waxay ka mid tahay qodobada oo ay dadka isku jeclaan karaan, oo weliba aad ku soo jiidan karto qof kasto. Weji furnaanta ma ahan in aad qoqoshasho kaliya, ee waa in aad farxad soo muujisaa. Haddii aadan iska keeni karin, xitaa soo bixi ilkahaaga oo ha qarinin ilkahaaga inta u horeyso. Haddii aad soo bixiso waxay ka mid tahay weji furnaanta. Ma ahan waxaan sheegayno wax dhiildhiil ah, ee waa wax daraasad lagu sameeyey oo tijaabooyin badan soo maray. weji furnaanta waa wax aad iska keeni karto. Markii aad rabtana aadan iska keeni karin. wejigaaga oo ka kuduudan oo mar walba oo aad xanaaqsan tahay, dadku waa ay kaa kala cararayaan. Qodobka saddexaad kuma dheeraanayno, halkaa aan ugu gudubno. Aan gadalno qodobka afaraad. Waxa uu yahay ixtiraam wanaagsan. Ixtiraam wanaagsan waa in aad ixtiraamtaa qof walba. waalidka kow ha ka naqdo. waalidkaada ha ku afcelinin wax walba ay ku dhahaan. 2 macalinka ha ku afcelinin. 3 saaxiibkaaga. 4 bulshada aad la dhaqmayso. ixtiraam wanaagsan waa in aad ixtiraamtaa qof walba, saqiir kabiir, ha yaraado ama ha weynaado.
waa inuu markuu wax ku weydiiyo haddii aad hayso aad si fiican u siisaa, haddii aadan haysanna waa in aad si ixtiraamsan aad uga jawaabtaa mahayo, waan ka xumahay iyo wax la mid ah. qodobka afraad aan u gudagalno waxa uu yahay runsheega. waa qodobka ugu halista badan oo aanan layska keeni karin. qodobka kani iska keentiisu waxaad u soo maraysaa dhibaatooyin fara badan, waayo runta oo la sheegaa waa arrin aad iyo aad u adag. runta oo la sheegaa waxa ay ka mid tahay qodobada aad dadka kusoo jiidan karto ama lagugu jeclaan karo. run sheega wax walba oo aad aragto inay sidiisa runta aad u sheegto, inkastoo hadeer dunida ay kasii dhammaanayso runsheegu waxauu ka mid yahay qodobada laysu jeclaado. aan aadna qodobka u dambeeya oo ah wax isa siinta ama wax isku hadiyeynta. waa arrin aan ilowsannahay wax isa siinta. qofkan walaalkaaga ah haddii maanta uu jeebkiisa maran yahay, waa in aad gacanta ka qabataa, aad u hadiyeysaa waxyaabo ka mid ah. haddii tusaale uu jeebkiisa buuxo xitaa ha ka jeesan oo wax yar u keen, hadiyad ha noqdaan. hadiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka ay isku jeclaadaan. hadiyadda waa shayga keliya lagugu jeclaan karo marka dhankayga loo eego, balse xaggaaga ma ogi. hadiyadda badi ha yaraysan, xitaa haddii aadan wax weyn helin ha yaraato oo wax yar xitaa ha noqdo. hadiyadda ha kala baqiilin qofka. haddii tusaale lagugu keeno, ka aqbal oo si wanaagsan weji furan aad uga aqbasho, aadna u mahad celiso. mid aan kugu daro, qof walba wax kuu sameeyo ha ka iloowin mahadsanid, shukran, taangiyo, sidaad u taqaanaba. shukran ha ka iloowin. shukranta waxay ka mid tahay qodobada laysku jeclaado oo qofka niyadiisa wax ku reebta. markii uu kaa tago waa uu soo xasuusanayaa shukran ama mahadsanid aad horay u dhaqday. waa tahay halkaas aan ugu gudubno qodobada. sidee baan ku noqon karaa qof la jecel yahay? qodobada kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga dayayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aan ku xasuusiyo cidda aan ahay waa Caaqil Yacko. haddii ay kugu cusub tahay arrintan, fadlan sheer dheh, asxaabtaada sii gaarsii si ay u noqdaan dad la jecel yahay. barnaamijyadeena kale intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.